بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo maanse aad u kooban oo runtii laakiin xambaarsan dareen aad u badan ama dareen aad u weyn waa qiso yar oo qisaan la yiraahdo saaxiibkay ku dhacday waxa dhacay in la yiraahdo waa gabadh waxay socdeen 4 sano ilaa markii waqti ku soo idlaaday inay isguursadeen oo ay markaa ku wada tashadeen in markaa aqal wada leeyahay baa waxa dhacday caraf baa jiray carafkii baa kala kala dhex galay oo gabadhii ninka meersatay saadarteed ninka dhayarta ahaa anoo jaba saaxiibkay anigu muxuu ahaa ka turjumay naftayda bilcabsaan ahaan maanta hadda ninka aan lahayd ha dhihi lahayd bamaanta aad u kooban baan rabaa inaan ka soo jeediyo baasadii ma sha Allah leedahay naftayda samid dugaasho jacaylkii soo taxnaa sooyaalkii waa burburay sadkii calaf baa bedelay yartaad saban horiyo waa saxiixdeen ku rajaa saako ilbiskeedii dhacay in bay wala siixataa siday xaajaduba tahay sariir qura wada tageen wadaageen soota iyo jacaylku siduu ahaa farxadna ku sabaarisee hadeer maankaba ka saar hamoodin sirkaa dadneyd ama siriq lagu dhigay iyo shaqasir gaxanto aad sheegtay adigu saatirka mid baa qoray marnaba adigoo saruugin qadarka rabbigaa saxiixay hambaliya salaan farax u dirnanta seegay waxa leeyahay macnaha de gabadhii wiilka guursaday u dir maxaa u hambaliyay iyadana sir ugu geey salaan laabto hoosiyo seeraha qalbiga iyo laga keenay suuqyada safka beerku uu xigo iyo saanta dhabarada saqda dhexe habeenkii marka galowgu siiyado sawd kalena u damo waqti uu macaan waxa la yiraahdaa labo qof oo isjecel ah wax sheekaan ama qof dareen soo gudbin karo waa waqtiga 6 saac iyo ka dambeeya markaas kale golwa baa waa qeysay laakiin dadka codka uu dasay dabadeed filashada si ay muruga qarisiyo wajigaaga silac badan uga garaanin sagal ay qosol aad sargoysiyo farxad aan qalbiga simin ku sabaalay ruuxdan marka u tagtina si ay sakaaga dareemin gabadha sagal baa lamay ay si ay sagal kaaga dareemin aan murugaysan tahay oo u qoslayo u farxaya marka de ka soo salaam alaykum